runtii Soomaaliya siyaasadda markii la joogo waxay u tahay arin aw halbowle ah oo ay mustaqbalkooda ay ku xiraan had iyo jeeraale marka waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed u tahniyadeeyo bulshada Soomaaliya baarlamaanka labadiisa aqal u tahniyadeeyo uguna tahniyadeeyo kal fadhiga koobaad oo ay maanta yeesheen oo Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala in fadhiyadaasi ay noqdaan iyo kuwa ka dambeeya kuwa isbedelka Soomaaliya ay hiigsanaysa laga helo waxaan rabaa kaliya inaan wax dhowr arrimood isdul istaago ugu horeyn aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay aragtidii siyaasadeed ee aan qabnay muddada dheer aan u ololaynay ku aadanayd in arrimaha Soomaaliya ay miisku dhamaato in arrintii miisku soo dhamaatay oo Soomaaliya maanta ay sanduuq dhala ah iyo dad Soomaaliyeed soo fadhiyo oo doorashadii ay soo dhamaatay qaybo kamid ah qaybo kale ay soo socdaan inay ku dhamaanayso qanaacadaasna waxay ahayd qanaaca aan qabnay waxaanu arkaynaa wax dalka iyo dadka iyo ummadda mustaqbalka u roon alxamdulillah taas markii laga tago waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan xasuusiyo 23 bishii Abriil 2019 ayaan ka hadlay arrin hotel Doorbin munaasabad lagu qabanayay waxaana ka sheegay meeshaasi in Soomaaliya marnaba aanay kana adkaanaynin waxa la siman isqaadasho ay tahay dadka maalinka dawladda ah oo anigu aan ku jiro wasiiraan ahay inay dadka gudaha ku jiraan gudaha ku wada jiri doonin dadka banaanka joogan inay banaanka wada joogi doonin taas waxaan kaga jeeday qofka Soomaaliga in la fahmo inuu qof walaalka ah yahay ama markaas midka xilka iyo siyaasadda joog ha ahaado ama midka banaanka ka joogo oo asaguna fursadiisa inuu qaato bulshada si uu adeegi karo in la arko rabo ha noqotee oo aan meeshii tartanka meeshii laga rabay aysan isu bedelin colaad iyo nacayb aysan isu bedelin dawladdii aan ka tirsanaa xukuumadda aan ka tirsanaa ra'iisul wasaaraheeda iyo wasiiradeeda in badan oo kamid ah maanta banaanka ay ka taagan yihiin rag kale Soomaaliyeed joogaan baarlamaanka iyadii ugu sareysay markaas ahaa meeshii joogeen asagan xubno badan oo guddoonkiisa kamid yahay qaar kamid ay yihiin ayaa banaanka ka joogaan dad kale Soomaaliyeed oo calafkooda ay noqotay iyaguna waa ay soo galeen oo maanta waxay si diyaar xilalka kala gedisan qaranka inay asteeyaan qaybana ka noqdaan runtii 3 sano ka bacdi arrinka sidii baan ugu taaganahay 3 sano ayaa maalmo ka dhiman yihiin kelmadaas markaan meesha ka idin wasiir baan ahaa meeshaas inay u dhamaan doontaan aaminsanahay dhanka kale Soomaaliya wada ay ku wada guuleysan kartana way jirtaa wada ay ku wada fashilmaysana waa ay jirtaa haddii laba inta loo kala qaybsamo tartanka maahane adkaada iyo laga adkaada aan u fiirino gabagabada ama biyo dhaca doorashooyinka levelka soo yihiin waxaa dhacaysa markaas inaan danta aan lahayn inaan gaarin laakiin haddii aan u fiirino in dad Soomaaliyeed wax wada leh inaan nahay qofkii markaas mas'uuliyadda Ilaahay siiyana aan garab istaagno oo kala socono laguna garab istaago iyadana waxay noqon kartaa arrin wadada guusha waa midaas wadada guul darrada waa mid ah laga adkaado iyo adkaado in taariikhda loo fasiro oo laga adkaadona dagaalka oo soo bilaawo adkaaduhuna oo yiraahdo si aan laga daba imaanin inta iga sokayso ilaa dab ku qabana arrinka kale oo aan rabo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago waxay tahay xildhibaanada Soomaaliya waa la dhaariyay bil Ramadaan la dhaariyay waxa dhaartaas loo galay waxa ay tahay qofka mararka qaarkood waxa ugu weyn oo lagu dabro qof la ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah yiraahdo waxa ay tahay dhaarta in dantaas guud oo ummaddu ay leedahay oo u dabranaado oo san meel ka aadi karin ayaa Ilaahay loo soo galiyay bil Ramadaan waa tay ahayd waana taawil waa ku jirnaa waxaan rabaa inaan iraahdo xildhibaanada waalahay ah oo rag iyo dumar bale dhaar wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay dhaarta ka xoog badan sida marka qalbigiina inaad intaad la tashataan oo umadiina la tashataan oo maslaxada aad fiirisaan inaad codka meesha ku reeysiin iyo waxa sameynaysiin oo ay saas noqdaan intaas waxa si dhinac socdo si sax ah hadaa wax loo doono oo si sax wax loo sameeyo oo afkaaraha iyo aragtiyada saxan aan la qaadan waxyaabo kale wax lagu tixgeliyo qofka nafsadiisa wuxuu noqonayaa codkaas dhibban uu noqonayaa waayo dalkaaga hadii uu dhibban yahay adiguna waa la dhibanaanaysaa ama madaxweyne ka ahaw ama ra'iisul wasaare ka ahaw ama muwaadin ka ahaw ama askari ka ahaw ama shaqaale caadi ka ahaw qof kasta oo Soomaali hadii uu hagaagu meesha ugu tagaa hadii ay wax qalloocdaan qalooc meesha ugu tagaa marka waxaan leeyahay walaalayaal wada hukuman oo qaabsan ayaad maanta u jeexi kartaan Soomaaliya idinkoo qalbigeena la tashado danaha ummadiina fiiriyo ubadkiina fiiriyo ubadkiisa fiiriyo sooyaalka Soomaaliya la soo dhaafay fiiriyo midka mustaqbalka fiiriyo waxaan leeyahay walaalayaal qalbigeena dambi ha ka dareemin hadii wixii dalka dan u ah aad ku dhaqaaqaysaan
wax kasta oo maaragtay dhaarta ka horeeyana dhaarta ee ku xoog badan waa dhaarta waa wax ilaahay lala galo wax kale soo wax dad lala galay ugu dambeyn wax kasta oo wanaagsan waxay leeyihiin xilli ay ku wanaagsan yihiin iyo goob ay ku wanaagsan yihiin Soomaaliya hoggaanka maanta ku wanaagsan waa hoggaan isu keeni karo oo wax la wada leeyahay og siyaasiyiinta dadka isqabtay in qaar kamid intay biyo noqdaan ay sidii biyihii dhulka u guraan inay sandhicay inay joogi doonaan ay wax kala haanayaan ay meesha taagnaanayaan waayo dal kale ka siyaasadayaan ma laha dalkuna siyaasiyiintooda iyaga ah oo wax la wada leeyahay qof aaminsan bay u baahan yihiin qof aan ciifo u qabin bay u baahan yihiin wixii hore u qabin bay u baahan yihiin qof wax isu keeni karo wax isu maslixi karo bay u baahan yihiin arrimahaas iyaga ah waxaan aaminsanahay inaan leeyahay baan aaminsanahay baarlamaanka Soomaaliya khadaafka markaan hor istaagan u faahfaahin doona haddii Ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed laakiin hoggaanka maanta loo baahan yahay waa hoggaan isu keena ah oo waxa ka muuqda ay tahay in uu keeni karo isla socod siyaasadeed is-ogol siyaasadeed isla maslaxad siyaasadeed iyo inaan deegaanada iyo dadku aysan kala xigin shaqadaas waxaan aaminsanahay tan aniga aan aqaan inay tahay waa mahadsantiin